gudoomiyaha cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal mudane Nuuraddiin Muuse Cali Sarreeye ayaa maanta kormeer ballaaran ku tagay qaar ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee magaalada Boorama. Kormeerkan oo gudoomiyaha ku weelinayeen qaar ka mid ah madaxafiisyada xarunta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal ayaa waxa ujeedadiisu daaranayd kor u qaadida tayada waxbarashada gobolka Awdal iyo dardargelinta habsami u socodka waxbarashada ee gobolka Awdal. ugu horreyn daba gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal mudane Nuuraddiin Muuse Cali ayaa ka warbixiyay kormeeradan ballaaran ee wasaaka ku sameeyay qaar ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ku yaala magaalada Boorama. waxaan weegan ka shaqeynanay oo qorshe ahaan aanu isla fahanay kadib markii aanu kulan la qaadanay shaqaalaha dugsiyada shaqaalaha xarunta ee wasaaradda inaanu kordhino kormeerka dugsiyada ugu yaraan inta imtixaanada ka horeysa hadaba November baa 22 marasa marka inta ka horeysa ilaa bisha 6deeda insha Allah waxaanu doonaynaa inaan dugsiyada inta ugu badan aynu mari karno marno qorshayaasha noo deganaa bay ku jirtay waxa kaloo ka mid ahaa kor u qaadista bilicda dugsiyada iyo wasaaradda labadaba inaan iyada lafteedana aanu bilicdeeda kor u qaadno maanta waxaanu soo marnay 3 dugsi dugsiga galbeedi ee good iyo dugsiga Boorama Girls saddexda dugsi baan soo marnay waxaan supervise gareynay macallimiinta saddexda u dhigayeen lesson balaanadoodii content-ka ama manhajka inta ay dhameystireen inahaasaanu soo marnay waxa kale oo la fadhiisanay maamulayaasha saddexda dugsi marka laga reebo Girls-ka labada dugsi ee kale oo maamulayaasha la kulanay aan ka wareysanay marka bal nidaamka management ee dugsiga tirada macallimiinta wixii tabasha ay marba u baahan yihiin inahaasaanu guud ahaan aanu maanta soo marnay wana inoo sii socon doona insha Allah barnaamijka kormeerka aan ku tayeynana waxbarashada. geesta kale gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal mudane Nuuraddiin Muuse Cali ayaa waxa uu ka warbixiyay kulamo ballaaran oo maalmihii u dambeysay uu la qaadanayay guddiga horumarinta waxbarashada ee degmada Boorama iyo waliba sidoo kale shaqaale weynaha xarunta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal iyo guud ahaanba maamulayaasha dugsiyada gobolka Awdal oo isugu jira kuwa gaarka loo leeyahay iyo dugsiyada dawladda. waa kan mar kale gudoomiyaha oo ka warbixinaya kulamadaasi iyo waxyaabihii la isku qaatay. intaanu qorsheynay kormeerkan waxaanu kulamo la yeelanay shaqaalaha xarunta ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal guud ahaan maamulayaasha dugsiyada kuwa gaarka iyo kuwa dawliga labadaba sare iyo hoose guud ahaan ujeedada u badan ee kulanada u qabanayna waxa ahayd kor u qaadista iyo tayeynta waxbarashada. marka si waxbarashadii loo tayeeyo waa in marka hore xog la helo xog ururinta marka kormeerkaanu ka wada shaqeynanay teamkayga kormeerka ayaanu dugsiyada soo wada marnay marka waxaan ku dadaali doonaa inaanu inta ugu badan ee aanu mari karnana marno insha Allah guud ahaan gobolka oo dhan